midowga nabadda iyo horumarka dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee maanta nagu sharfay inay nagala soo qayb galaan munaasabadan taariikhiga ah ee weyn ee lagu daafurayo xisbiga cusub ee xisbigan midowga nabadda iyo horumarka dhammaan waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo anoo ku hadlaya magaca xisbiga cusub ee midowga nabadda iyo horumarka nasiiseen nagala soo qayb gasheen waxaan sidoo kale si gaar ugu mahad celinayaa xisbiyada siyaasadeed ee naga horeeyay ee aan daba socono raadkoodii soo qaadnay oo ayaguna aan leeyahay wax badan oo wanaag ah qabateen waana mahadsantihiin sidoo kale odayaasheena dhaqanka sharafta badan karaamada badan dalkaana muxuu ahay doorka ay ku yeesheen iyo meeshay ka soo qaadeen la garanayo ayagana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadaalka ay dalka geysteen iyo weli sida ay ugu heelan yihiin annagoo og kuwa badan oo ayaga ka mid ah in ay u hureen naftooda hal sabab oo ah Soomaaliya nabada oo horumarsan oo dawlad leh ayaan rabnaa ayagoo dhahayo in qaarkood ay naftooda ku waayeen waxaana leeyahay wax ka qiimi badan oo nafta lagu waaylaha ma jirtee intii arinta daraadeed u dhimatay sabir iimaan Allah naga siiyo ayagana jannada Allah ka waraabi walaalayaal maanta meeshaan hadalla aad iyo aad u qiimi badan laga jeediyay laakiin waxaan rabaa hal midaan rabaa inaan sheego waxa la yiraahdaa ummadaha dagaalada sokeeye ka soo baxay taariikhdii la soo dhaafay sida uu kala aragti duwan yahay geesigii shalay nimo oo burcadkii u yahay burcadkii shalayna nimo gees u yahay laakiin aniga waxaan rabaa hal meel inaan ka qaato taariikhdii la soo dhaafay wixii wanaagsanaayo dhacayaan rabaa inaan ka qaato waxaan rabaa burburkii iyo dagaalkii dhacay kadib 1991kii wixii ka dambeeyay ilaa 2000 taariikhda waan garanaynaa dalkeena duruufihii gaarka ah uu soo maray iyo dhibaatooyinkii ka dhacay yeeshee marna dadka Soomaalida kama ayan daalin in dawladnimadii dib loo raadiyay markii la arkay indhaha la kala qaaday waagi bariyay wixii la suubiyay iyo wixii lagu sugnaay inaanay ahayn wixii la rajeeyay ama la rabay isla markii waxa loo dhaqaaqay in dawladnimadii dib in la raadiyo waad garanaysaan Djibouti iyo Djibouti 2 iyo waagi la bilaabay waad garanaysaan waagi dad badan oo siyaasiyiin ah oo in badan oo kamida odayaasha hore ah oo hadda ay geeriyoodeen inay safar galeen oo dalkoo dhan oo markaas khatartuna ay iska jirtay inay safar u galeen si nabadii loo raadiyo iyo dawladnimadii loo soo celiyo hase yeeshee 2000 taariikhda markay ahayd 10 sano kadib oo baadi goob ah waxaa suurto gashay in dawladii ugu horeysay ku meel gaarka ahayd magaalada Carta lagu soo aasaaso mar kale dawladdaas waxaa buddig u ahaa u taagnaa dhaxaad u ahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed bulshada rayidka ah oo rag iyo dumar bale culamaa u diinka iyo siyaasiyiintii maalinta joogtay intooda badan walaalaheen dalka Djibouti aan rabaa ayagana inaan u mahad celiyo ayagoo mas'uuliyad iyo culays ka tan badan birigaas qaaday si ay dalka Soomaaliya nabad ugu soo celiyaan si kastaba ha ahaatee walaalahaasi waa dambeysana ilaa maanta aan joognana wayna garab taagan yihiin inaan dawladnimo helno marka waxay naga mudan yihiin inaan aad iyo aad u xusno mar walba iyo meel walba aan joogno uguna mahad celino haddii aan wax yar ku noqdo mudanayaal iyo marwooyin sooyaalka taariikhda dalkeena ee toosan ee fiican iyo dadkeenaba mar walba waxaa jira imtixaanaad ummaddu ay soo wajahaysay odayaashii hore imtixaan adag ay soo wajaheen si ay dalka uga badbaadiyaan inuu faraha ka baxo si ay dalka iyo dadkeena u badbaadiyaan in la dhaxal guuriyo oo dadkii dad kale ay yeeshaan oo aan Soomaali ahayn aad iyo aad markay lahaayeen dadka ajaanibta oo imaanaya heshiisyada qaarkood ee maqaarka ku qoran ay la galeen qaarkood ay lahaayeen kuma ilmihiinu kuma dhala karaan dalkan meeshaad ku soo dhalanaysaa ku soo dhasha laakiin macaamil adduunyo aan sugu nimaado xigmad aad iyo aad weyn ayay ahayd markii kuwa kale inta hubka qaateen ee cadaankii inuu soo degay rabay badda ay ku hor istaageen ee sanooyin badan ay ku hor taagnaayeen badda dhexdeeda inuu ka soo degay ay u diideen waxay ahayd dadaal lagu badbaadinayay
dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo diintooda xaniifka lagu badbaadinay ayay ahayd taariikhdaasi meel kastoo soo gaartaba markii dambe waxay ku soo gaartay marxalad la garanaayo oo ah xurriyaddii Soomaaliya dawlad qaran oo casri ah inay yeelato markii ugu horeysay 1960kii oo ka koobnaatay sidii horeba loo sheegay laba gobol oo shantii qaybood oo Soomaaliya loo kala qaybiyo kamid ah walaalaha waqooyiga sida halkan taariikhda looga dhawaajiyay soo keenay midnimada iyo maxaan ku yiraahdaa walaaltinimada halkan u yimiday ee la iskula biiray ku samaysatay jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii jirtay runtii waxay mudan yihiin ayagana in taariikhda lagu xuso wanaagaas iyo niyadsamida Soomaalinimada ay biriga ay la yimaadeen waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyay maanta duruuftaasi waa isbedeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo waxbay tabanayaan magaca dawladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dawladnimada in lagu oo wax looga bixiyay ayay tabanayaan waxa ila haboon marka dadka Soomaaliyeed dawlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeenana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dawladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dawladnimada loogu geystan inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno mustaqbalka soo socdana aan tala fiican isaga ogaano iyo sida la yeelayo baadigoobkeed in badan waan ka soo shaqaynay meelo badanna waa soo gaarsiinay laakiin hawshu waxay u baahan tahay waqti dheer iyo juhdi aad iyo aad u dheeray u baahan tahay annagu waxaan berigii aan joognay talada waxaan go'aan ku gaarnay mar walba waxa wanaagsan ee midnimada keeni kara inaan jirino haddiiba ay nagu adkaatana inaanan uga darin meesha ay markaas taagan tahay inaan looga darin oon lasii kala irdhoobina meesha ay taagan tahay lagu celceliyo ayaan annagu go'aan ku gaarnay waana ku soo guulaysanay oo alxamdulilah meel fiican ay soo gashay guushaasi 1960 ka timiday ma ahayn in mushkiladaheennii oo dhan ay meeshaas ku dhammaadeen laakiin mushkilado cusub ayaa meeshaa ka dhashay iyo su'aalo cusub oo la isweydiinayo su'aalahaasi su'aalo aad iyo aad u waaweyn ayay ahaayeen marxaladda cusub la gaaray sidee u horumarinaa dawladnimada iyo xukunka dawladnimada casriga ah sida ugu habboon ee dadka Soomaaliyeed ku qancaan ee u cutanta ay qaadan karaan waa maxay su'aalay ahayd sidoo kale sidee u horumarinaa dhaqaalaheenna una gaarnaa isku filnaansho aan uga maaranno kaalmada dibadda nooga imaanaysay sidee u kobcinnaa garaadka bulshadeenna una horumarinaa tacliinta iyo tiknoolajiyada muhiimka u ah horumarka dalka mudanayaal marweyn waxaa maragma doonto ah in jiilkii xurriyaddu su'aalahaas qayb ka mida inay ka jawaabeen oo ay jawaabo cadcad u heleen qaybtii kalena intii ay ku mashquulsanaayeen ka jawaabisteeda inay dhacday dhibaatooyinkii aan soo sheegnay taariikhiga ahaa ee xanuunka badnaa ee dalkeennu la soo gudboonaaday waxaan shaki ku jiray dagaaladii sokeeye iyo burburkii dawladnimada ee dhacay horaantii sagaashameeyadii inay dhibaato aad iyo aad u weyn dalka geysiyeen laakiin haddana fursadana way abuureen maanta wacyigeenna waa maama madiina maasha kala harin waa mahadsan tahay maama madiina waa aad iyo aad u mahadsan tahay marka waayo aragnimada aan ka dhaxalno waxay tahay maalin walba waxbaan ka soo baranay meelaan soo gaarnay in qof Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed inta soo baxo anaa dalka xoog ku qabsaday anaana u taliya inta laga baxo inuu yiraahdo oo keligiis uu taladii marorsado waa laga soo quustay reer hebel la yiraa reer qurac la yiraa inay inta isku tagaan wiilashooda qoryo u dhiibaan dalkan xoog ku qabsanaynaa ay dhahaan
ayadana waa laga yimiday oo waa laga soo quustay maxaa soo haray marka waxaa soo haray marka in si nabad ah oo wada jir ah oo wada tashi ah muxuu ahaayay loo tashado oo taladana loo wadaago oo la isu warsado fursadda hartay waa midaas waa midda waayihii dhawaayo dhanna aan ku soo mashquulsanayn hadda iyo mustaqbalka soo socdana aan ku sii mashquuli doono annagoo mar walba wixii tabasho ah ee meel ka jira meesha kale ku xallinayna haddii alla yidhaahdo intaas kadib haddaan u soo noqdo aasaaska xisbiga midowga nabadda iyo horumarka waa wax arrin qadiyad weyn ah oo in badanna laga soo fikiray walaalayaal waxaan rabnaa xisbigani inuu astaan u noqdo oo ka mid noqdo horyaalka xisbiyada faraha badan ee horyaalka ah ee dalkan u dhismaya maanta inuu ka mid noqdo oona la shaqeeyo oona la midoobo oona wax ku biiriyo ra'yi sidii loo heli lahaa dawlad Soomaaliyeed oo dimuqraadi ah mabaadi' cad oo aan lagu kala leexan karin dimuqraadiyaddu sideedaba waa maareynta afkaarta kala duwan iyo masaalixda kala duwan ee dadku leeyihiin dadku malaa'ig ma aha hal meel u jeedo motor marna la kicinayo marna la dabayo ma aha rabitaan ay leeyihiin dareenay qabaan cabsi ay qabaan jacayl ay qabaan waana ku kala duwan yihiin laakiin meel dhexe oo qolo walba ay fikirkeedii iyo taladeedii iyo rabitaankeedii ka arkayso meel dhexe oo qof walba cabsidii ay qabtay ay ka maqan tahay ay ka arkayso in talada la marsiiyo waa nidaamka dimuqraadiga tan labaad waxa waaye nidaamka dimuqraadiga in talada dalka si sharci ah oo hore loogu heshiiyey oo lagu ballamay in lagu yimaado talada dalka xukunka dalka in lagu gaaro sifo qaanuuni ah oo hore looga ballamay oo lagu heshiiyey oo aan meelna looga leexan qodobka koobaad keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilaaw qawaaniinta kaloo kala duwan oo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka ayadoo la raacayo mar walba ayadoon marna la isku dayin qaanuunka in laga weynaado iyadoo marna aan la isku dayin qaanuunka in la barbar maro iyo in ilaalmadaas qaanuunka hay-adihii ilaalinaya dadkii la ilaalinayo oo lagu xushmeeyo loo sameeyo midda saddexaad ugu dambaysa waxay tahay muddada talada lagu igmaday markay dhammaato si qaanuuni oo nidaami ah inaad ayadana uga tagtid oo aadan talada ka sii laalacshoomin oo aadan ka raaracsan waqtigaada hadduu dhammaaday qaanuunkaa tilmaamayo waqtigu markuu dhammaado waxa la samaynayo waa inaad qaanuunkaas aad ku adkaysataa aad ku raacdaa haddii dadka Soomaaliyeed mar kale mandate ku siiyaanne xilkaas waa qaaday mar labaad u noqonaysaa adoo mar walba saddexdaas mabda ilaalinayo haddii dadku ku yiraahdeen maya muxuu ahay markaan jaamacan ku deeyna ama cali suban ku deeyna ay yiraahdaan inaad aqbal iyo guddoon intaad tiraadid aad muxuu ahay u hor istaagtay bulsho madaxweyne bulsho dhibe howlaha wadanka hanankiyo hagaaga habsimada cadaalada xisbiga loo habeeyo heegan aanu nahay maasanta aan rabaa wax yar inaan gadaal u noqdo 2000 laga soo bilaabay ilaa 2012 12 sano oo dawlado isxigxiga oo ku meel gaar ah dalka ay soo mareen dawladahaasi caqabado waaweyn si badan ay kor yimid laakiin mid walba dawladnimada waxbay ku kordhisay mid walba dawladnimada meeshii ay joogtay meelay uga sii sikisay haddaanay wada sikin qaybo dawladnimada ka mid ah ayay horumar ka gaartay waxaysay 2012 waa markii ugu horeysay ee dalkeena gudihiisa horta doorasho ay ka dhacdo safarka carta ka soo bilowday imbagaati ku xigay jowhar ku xigay baydhabo ku soo xigay markii dambe muqdisho caasimadda jamhuuriyadda yimiday ayaa 2012 soo gabagaboobay markii ugu horeysay baarlamaanka Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto madaxweyne Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto dawlad aan ku meel gaar ahayna la dhiso ayay ahayd horumar iyo guul runtii aad iyo aad u weyn oo 12 sano ee ka horeysay shaqadii la soo qabtay mira dhalkeeda ah ayay ahayd xoogagii siyaasadeed ee biriga jiray waxay aad iyo aad ugu qanceen
xikmadii ahayd shimbirkii duulay hawada maraa irsaaqadiisa dhulkay taala waa inuu soo degaa meel kasta dal dibad hadaad soo warwareegto meesha ugu dambayso waa Soomaaliya iyo talada in Soomaaliya la keeno marka 12kii wixii ka dambeeyay dawladda ku meel gaarka waa ka baxday macaamilkeena caalamiga waa hagaagay dadka Soomaaliyeed iyo intii siyaasiyiinta biriga joogtayna waxay u guntadeen dawladnimada safarka ka soo bilowday Carta ee aan sheegayay markii dambe iskool bulisiya ku soo gabagaboobay halkaas in inta laga wado Soomaaliya geeskaas in la gaarsiiyo waa lagu shaqeeyay maamulada maanta jira ayaa ku dhismay xukunkiya ku baahay laakiin safarku wali ma dhamaanin safarku Kismaayo iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Dhuusamareeb iyo Garoowe inuu ku ekaado maahan inuu ka sii tago oo waxa la rabaa degmada uu sii gaaro oo tuulada uu sii gaaro oo ceelka maxaan ku iraahdaa geereen uu biyaha kacab uu sii gaaro oo tuulada xeebta ku taal kalluumaysatada ay degantahay ay sii gaarto talada ay wax ku yeeshaan oo ay ka taliyaan halkaas safarka marka wali waa socdaa ma dhamaanin safarkii wali waa socdaa ma dhamaanin waxaan rajaynaynaa talaabta hadda la qaaday ee nidaamkan xisbiyada badan ah inuu yahay midkii sahlaya safarkaas inuu si dubka u dhamaado oo meeshaas tago dalka qaarkiisna anagu Soomaali haddaanahay sideenaba ama xuduudda banaankeeda aan ku noolaano ama xuduudda gudaheeda aan ku noolaano kalama fogin kalamana aadna uma kala aragti duwan tijaabooyin badan ay jiro Soomaaliland case ah oo tijaabo ah oo doorashooyinka iyo nidaamka ay sameysay iyo baahinta xukunka sida ilaa heer degmo ay u gaarsiiyeen tajribo la qaadan karo oo nool oo taagan oo Soomaali leedahay waa deganaanshiyaha iyo nabadda ka qaadashay leedahay Puntland oo ayadana ku xigtaa sidoo kale ah ayadana deganaanshaha iyo nabadda iyo maxaan ku iraahdaa horumarinta ka qaadashay way aragnimo ka qaadashay leedahay tajribooyinaan qabnaa oo Soomaali kuwa xuduudda banaankiisa ku nool wanaaga ay sameeyeen ayaa ka qaadashada laftiisa dawlado dad Soomaaliyeed oo dawlado kale ka tirsanaa jiro laakiin afkii Soomaaliya ku dhaqan galay xeerarkooda iyo qawaaniintooda af Soomaali ku qoran yahay oo aan wax badan oo way aragnimo ah si aan u soo gaabino safarka muxuu ahay fog oo aan rabno inaan dhameystirno waxaan rabnaa marka walaalayaal Soomaaliya kalama maaranto dawladnimo kuma kala maaranto hal dal inay noqoto kuma kala maaranto iskaashi haday hal dal wada ahayn xataa iskaashi iska warqab inay gobolkan geeska Afrika ee aan ku noolnahay ay kaga noolaato kuma kala maaranto xisbiga nabadda midowga nabadda iyo horumarkana mabaadida u taagan yahay waa intaas labada waxyaabood ee dadka Soomaalida ay ka siman yihiin ee mideeya dadka Soomaalida qabiilka kama sinin isku qabiil baahin qabiilkayga mugliimaada hoosal si aada si kala qabiil aan noqonayna aniga iyo kan dad ii xiga waa si kala soconayna laakiin laba waxyaabood oo dhamaanteen ka simannahan leenahay labada waxyaabood oo aan ka simannahay Soomaali meel kasta ay joogto waa diinta Islaamka inaan dad muslimiin nahay on sunniyiin nahay on shaafiiciyiin nahay Soomaali gees meesha joogto waa ka simannahay so diinta Islaamka waa aaliyad aan leenahay oo Ilaahay hiban noo siiyay waxa kaloon ka simannahay wada leenahay oo naga dhaxeeyo Soomaalinimada afka Soomaaliga naga dhaxeeyo dhaqanka soo jireenka oo Soomaaliga ah naga dhaxeeyo muuqaalkeen wax walba aan ku leenahay naga dhaxeeyo sidaas daraadeed diinta Islaamka iyo wadaniyada Soomaalinimada ku salaysan waa labada waxyaabood oo aan leenahay inkastoo naloo dhaxgalay oo la isku dayay in lagu kala qaybiyo diinta la dhaxgalay oo la isku dayay in lagu kala qaybiyo adikuna kooxdaasatiin kuwana waa kuwa maxaan ku raadahay sarwaalka gaabsado kuwan waa kuwa garka xirto kuwan waa kuwa duubka saan u duubtana la yiri haddana intaasaan ka midaysanahay islaamnimada sunninimada shaaficinimada barashada quraanka oo caalamka in badan wadamada muslimiinta aan caam uga nahay tahfiidul quraan iyo ilaalintiisa caalamka islaamka waa uga tilmaamanahay Soomaali hadanahay waa ku midaysanahay ku dhaqankeeda iyo ilaalinteeda iyo horumarinteeda arrin aad iyo aad muhiim u ah afka Soomaaliga iyo wadaniyada Soomaalinimada ah iyaduna waa waxa kale aan ka midaysanahay
oo inaan waxayna u baahan Soomaalidu waxay ku maamaadaan caloolo waxay ku bukootay laguma daaweeyo dawladdeennii qarankii Soomaaliyeed ee 30 sano soo jiray markii aan kala furfuraynay ee aan kala qaadaynay waxaan tuulkii aaliyadii aan ku kala furfurnay wuxuu ahaa qabiil ciidamadii qabiil ka dhignay maamulkii dawladdan qabiilaynay gobolladii qabiil u kala bixinay oon siyaasadaynay hadda waa qabiilka siyaasadda loo adeegsadaan ka hadlayaaye qabiilkii muxuu ahay reer hebel waa xoolo beeleen ha loo xoolo gooyo iyo agoonta maanta ha loo dhaamay iyo beerta ha loo goobiyo iyo la dhahayo wanaagga badnaayo soosha mujtamaca uu ku dhaqnay maaha midka siyaasadaysan waa tuul aan ku kala furfurno dawladdii waxaan ka dhignay qabiilka nasiib darro maanta haddana waxaan joognaa tuulka aan dawladnimada ku dhisayna inaan dhahno waa qabiilkii waana dhibaatadii culayska wax nagu hayo qayb weyn ka yahay qabiilka siyaasiga ah marka xisbiye siyaasi ah inaan maanta aan ku riyoonno oo aan abuurno oo aan jiridsiino oo aan isku raacno meeshaan xisbiye badan oo jira muxuu ahay madaxdoodii maanta ay ka hadashay araadooda iyo mabaadidooda iyo maxaan ku raadayay aragtidooda fog dad badan oo Soomaaliyeed ku qancay ilaa xisbigu ma samaysmi lahayn haddaan dad lahayn sidaas marka in aragti dalka sidaana u fiican iyo maya sidaana u fiican safarkeenu sidaanu ku soo gaaba kara si nabad ah maya ee sida in lagu tartamo oo ra'yi lagu tartamo oo dalka wanaaggaanaan annagu gaarsiinaynaa lagu tartamo oo dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo waxa waaye waa cusub oo Soomaali u bariyo oo fursadiisa la waay waxaan maanta u baahannahay marka inaan ku mashquulno waxyaabaha yaryarka ah ee nooga dhiman arrinta waxyaabaha yaryarka ah ee nooga dhiman arrintaasaan u baahannahay inaan ku mashquulno maaha arrimaha yani na dhaafayo waxaan na dhaafay nidaamka doorashooyinku nama dhaafayo weligiis waa nala joogaya dastuurkeenna dalka uu yeelanahay nagama tegayo waa nala joogaa mar walba nidaamka amni ee dalkan uu qaadanayo ee dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin waa wax ayadana nala joogayo weligeed naga tegaynin oo inaan mar walba sii horumarino u baahan nidaamka garsoorka ee dalkan uu yeelanayo cadaaladda waa sidoo kale waa wax mar walba nala joogayo oo maalin walba in la sii qurxiyo u baahan cilaaqaadka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo la xadido si sharci ah oo sifo sharciyeysan lagu waadaxa lagu dhiga meel waa waxa ayadana u baahnaa weligeed aan naga tegayn maxaa dawladda dhexe u gaar ah maxaa dawlad goboleedka u gaar ah maxaa ka dhaxeeyo oo inay ka wada tashadaan oo ka wada heshiiyaan u baahan waa waxa aan naga tegayn ayadoo howlahaas aad iyo aad u faraha badan oo weligeed nala joogayo mahar iyo habeen inaan ka shaqeyno aan u baahannahay ayaa laga yaabaa waxyaabo kale oo axdaaf ah oo na gudbayo naga tegayo inaan ku mashquulo laga yaabaa marka waxaan ku boorinayaa xisbiyada siyaasadda kuwa jira iyo kuwa soo socda wadada ku soo jira ee mar dhow jiri doono in ay ku mashquulaan waxa istiraatiijiga ah ee dalkan iyo dadkiisaba dhaxal reebka u noqon karo oo hagaaji karo waxaan qabaa ku kalsoonahay Soomaaliya haddii mar caqabadan yarta ee wareegaysa ee muxuu ahay ay ka dhax baxdo ay banaanka u baxdo oo deganaanshiyo siyaasadeed iyo nidaam iyo dimuqraad ay hesho muddo kooban umaduhu 30 sano 40 sano qaarkood ay uga soo kabtaan dagaalada sokeeye Soomaaliya waxaan ku kalsoonahay 10 sano inay uga soo kaban karto ay ku gaari kula tartami karto dawladaha iyo ummadaha maanta jira laakiin waxaan u baahannahay waa siyaasadda amni ma sugi karno horumar ma gaari karno maxaan ku yiraahdaa karaamadeenna iyo sharaftii aan lahaynoo buuxda si dhab uma soo cesho karno muddo gaaban haddaanan siyaasadda laga heshin haddaanan siyaasadda la iska fahmin haddaanan siyaasadda qawaaniin hagto oo lagu wada qanacsan yahay aan loo yeelin haddaanan la caddaynin oon la garan waayo maxaa dhacaya berri 2020 maxaa dhacayo hadday dadku shaki ka qabaan mushkiladda ugu weyn oo jirta waay siyaasaddu waa inay nidaam noqotaa nidaam la garanayo waxa dhacaya berri iyo sida ay u dhacayaan iyo cidda mas'uulka ka ah waa in la garanayo haddaan la garanaynin waxay imaanaysaa in la istuhumo in la kala cabsado in maxaan ku iraadaaye la kala shakiyo ayay u imaanay
xisbigan iyo xisbiyada guud ahaanba waa ka baaxad weeyihiin inay yihiin tool ama aaliyad loo adeegsado xukunka si loo tago dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay sifahaas siiyaan tool ama aaliyad loo baabuurkii ku geyn lahaa bila Soomaaliya inuu yahay maya waxaan qabaa anigu xisbiyadu ma aha baabuurkaas ma aha xisbiyadu waa dalkan dhan baabuurkii dhaqaaji lahaa oo geyn lahaa meesha nabadda iyo barwaaqada iyo horumarka iyo wanaagga uu ku jiro laakiin in yar oo ma aha muxuu ahay lagu gaaro xukunka kaliya ma aha marka waxaan rabaa dadku inay muhiimadda ay leeyihiin axsaabta la siiyo dawladda maanta talada haysana waxaan ku bogaadinayaa inay muhiimad siiyaan horumarinta xisbiyada iyo horumarinta qawaaniinta dawladnimada ee weli noo dhiman qawaaniintii wax badan oo ka mid ah noo dhiman oo aan ka soo qaaday xeerka doorashooyinka oo aan ka soo qaaday muxuu ahay dastuurka muxuu ahay jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan qabaa dawladdu in ay muhiimadaha ugu horeeya hortebinta leh inta ka dhigato arrimahaas ay ku mashquusho waxa kale ee maamulba imaanaya tagayana wax badan aanan muxuu ahay aan waqti badan iyo wax badan aan la gelin sidaas daraaddeed walaalayaal mar kale iyo mar kale waa idin mahad celinayaa waa idinku soo dhaweynayaa xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo aan rabno in uu ka mid noqdo axsaabta dalka ka jirto waxaan rabnaa inaan si hoose oo dhow ula shaqeyno xisbiyada jira kuwii aan isku biiri karno inaan isku biirno hal isku noqono kuwii aanan isku biiri karinna waxa aan ka midaysanahay waa la hubaa waxbaan ka midaysanahay waxa aan ka midaysanahay inaan ka wada shaqeyno waxa aan ku kala duwanahayna inaan isku xaq dhowrno oo isku karaamayno oo aanan isku culaadinin oo aanan isku maxaan ku raad dacaayadeynin ama aanan dagaal ku galin intaa kadib aad iyo aad ayaan u mahad celinayaa waxaan cod dheer ku leeyahay anoo ku kalsoon oo shacabka Soomaaliyeed walaaltinimo iskaashi dimuqraadiyad siyaasadeed iyo mid bulsho ayaa lagu gaari karaa nabadgelyo horumar iyo baraare la gaaro oo waaro aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mar kale iyo mar kale maalmo kaloo badanaan isu imaan doonaa haddii la yidhaaho waxaanan dhammaantiin inta aan weli aasaasayaasha xisbiga ka mid ahayna waxaan ku marti qaadayaa oo aan u fidinayaa codsi ah inay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ay ka mid noqdaan aad iyo aad u mahadsantihiin